arday ama dhalinyar badan baa jirto culuumta barata khaasatan culuumta shareecada bay nidhaahno culimadii amba wax soo bartay amba cidaan iyaga wax baray laakiin culimadii ayaa laga yaabaa inay hadal la'aan culimada ku wayda culimadu maanta ku gaarsiiyay quraanka iyo adilada weyn garana inay hadal qadafiya ama fiicnayna bal dhalinyarta noocaasa cilmigooda iyo noloshooda saameyn intee leeyahay ku yarta maxaanad iyagana ugu nastaxilisa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا waxaan horta in badan aragnay oo quraanka kariimka aynu ku haynaa iyo xadiiska nabiga calayhi salaatu wasalaam hadilo aad uga waramayso waliba adilo xoogano xifdul lisaanka ka waramayso qofka carabkiisa ilaashado waxa kale oo haynaa nusuus fara badan oo dulmiga ka digaysa waxaanu haynaa tarbiyada rasuulka calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisu tarbiyeyn jiray inay carabkooda ilaashadaan dadkana ay dulmigana iska ilaaliyaan inuu rasuulku tixgelin fara badan u siiyay waxaanu arkaynaa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo ducaa diraya Abu Musa al-Ash'ari Mu'adh ibn Jabal ayuu Yaman u diraya nabigu dabadna waa dardaaray iyagoo wuxuu yasira wala tu'assira bashira wala tunfira tadawa wala takhtalifa nabi maxamed amba bixinaya calayhi salaatu wasalaam walaba saxaabi oo Mu'adh ibn Jabal iyo Abu Musa al-Ash'ari waliba la sufahan oo labada saxaabi midna waxa loo diray koonfurta Yaman midna waqooyiga Yaman baa loo diray Mu'adh waxa loo diray waqooyiga Yaman oo Asticis iyo Sanaa kaas Mu'adh imanaya Abu Musa dhexdu ka baay dhexda ku kala baynay koonfurta Yaman waa meesha la Cadan iyo Hadramaud dhulkaas ayuu tagay haddana nabigu isagoo soo dardaarmay labadoodii ayuu si gaaray Mu'adh nabigu dardaaray calayhi salaatu wasalaam wuxuu rasuulku yiri ya Mu'adh innaka ta'ti qawman min ahli al-kitab falyakum awwal ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah xadiidka fawaid fara badan baa ku sugan waxa hadalladii nabiga kamid ahaa wattaqi da'wata al-madhlum fa innahu laysa baynaha wa bayna Allah hijab nabi maxamed wuxuu barayay calayhi salaatu wasalaam hadda gaala diin loogu baaqaya la gaarsiinaya nabigu wuxuu barayay calayhi salaatu wasalaam dulmiga inuu iska ilaaliyo saxaabi oo maadaama qadaa uu galaayo oo xukun uu galaayo oo waxyaalo fara badan uu galaayo nabigu wuxuu ku tarbiyadinaya calayhi salaatu wasalaam inuu dulmiga ka fogaado taasi waa tarbiyadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisa haddaynu quraanka kariimka u soo noqono jumcaalo quraanka markaad eegto waxa in badan quraanka ku xusan jihaado nabigu uu galay calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisu ay galeen oo ilaahay ku tirsiray duulaanada isagoo gaal ay la dagaalamaan fi suurati al-baqara ayada culimada qaarkood ay wa awwalul aaya nazalat fil jihad wa qawluhu ta'ala waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum la ta'tadu inna allaha la yuhibbul mu'tadin hada waxa la sheegay qatilu fi sabilillahi ba ilaahay subhanahu wali waxa alladhina yuqatilunakum niman dagaal idin kula jiro idin la dagaalama arbilay hadana waxa la raaciyo wala ta'tadu wa dhaabad adag weeye hadana waxa la raaciyo inna allaha la yuhibbul mu'tadin ba ilaahay subhanahu xadgudbina ilaahay dadka xadgudba ma jecel marka culimadu fasireen waxay tilmaamaan xadgudubkaas wuxuu noqon karaa dumarkii carruurta la laayo wuxuu noqon karaa waxa weeyaan wixii la oran jiray maxay qof markaa la gubo nolosha lagu gubo wuxuu noqon karaa waxyaalo fara badan oo shariicadu aanay ogolayn waxaad arkay sulhul Hudaybiya nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa la iska hortaagay rasuulku inuu xajka soo galo markii xajka la iska hortaagay nabigu umradii loo diiday umradii Hudaybiya rasuulku ku calaaloobay uu noqday ayaa waxa soo degay suuratul Maa'ida awaaisheeda waxay ka waramaysaa waayihii halka ku xeerna saxaabada qaar baa waxay dhahan wallahi haddii annagana loo diiday umradii inaanu tagnaan umraysano anaguna gaalada daafaa ka imanaysa mushrikiinta umrada imanaysa anaguna u diidayna inna ilaahi subhanahu wa ta'ala wala yajrimankum shana'anu qawmin ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrab lit-taqwa wala yajrimankum shana'anu qawmin an saddukum 'an al-masjid al-haram an ta'tadu wa ta'awunu 'ala al-birri wa taqwa wa la ta'awunu 'ala al-ithmi wal-'udwan al-khulasa quraanku wuxuu ku tarbiyadanayaa dadka horta marka koowaad al-insaaf wal 'adl tarku dhulmi cadaalad in la sameeyo dhulmiga laga fogaado qofka aakhiradiisa iyo carabkiisa marka uu ilaashado nabi maxamed markuu saadalka uu tarbiyadey tarbiyadina saxaabada ay ka qaateen quraanka Mu'adh soo nabigu ma oran wataqi da'wata al-madhlum Mu'adh sidoo aha marka kayfa kana Mu'adh ibn Jabal radiyallahu ta'ala Mu'adh sanadkii loo jiray Amwaas waa sanadkii Umar ibn Khattab khilaafadiisii ku beegnay daacun baa galay ardu Sham Amwaas baa loo jeeday tuuladu ka bilaabmay Amwaas magaceeda loo oran jiray daacunkaas waxa dhacay Mu'adh ibn Jabal laba xaasuu qaba maalin wada dhintay yoom bay wada hoydeen markaas waxay noqday maqaasi jamaaciya in loo aaso oo waxa weey labadooduba hal mar xabaasha lagu rido xabaal qura lagu wada rido waxaan u qoray tuuraya tan xabaashu ku horeysiin laha way waxaan ka baqanayaa tan ka horeysiin inay tiraahdo ilaahu waa iga jeclaayo
dee waxa daliilo waa kii xabaashii iga horreysay markaanu dhimanayba annagoo meyda ayuu noo kala eexdo hiblaayo waa kii xabaashii iga horriday horta inaynu qawaacidda ka dulna waa qodob masalada ku saabsan markaa culimada ka hadalkooda iyo culimada wax laga sheego culamaa ulumma marka laga yimaado nusuusta shareecada islaamka oo si guud ilaahay subxaanahu wa tacaala uga warramay in la dhowro markaa waxay dadka acraadooda la dhowro waxa muhiima inaynu ogaano dadka cirdigooda wuxuu u kala xaaraan badan yahay uu kala culus iyo kala diin badan yihiin soo kala dayaano badan yihiin soo kala xoog badanta waxay culimadu yiraahdaan hadduu qofku qof caalimo xanto iyo hadduu qof caami xanto way kala duwan yihiin labaduba waxana waa xaaraan laga way si kala culus yihiin ibnu casaakir dimashq raxmatullaahi tacaala calayhi ayaa wuxuu leeyahay kitaab la yiraahdo tabyin al-kadhib al-muftara waxa la tabyin al-kadhib al-muftari sheekhaasi kitaabka wuxuu oranayaa wuxuu ka warramayaa in waxa weeyaan qofka muslimka gaar ahaan culimada hilibkooda la cuna dhibaatada ay leedahay wuxuu oranayaa luxum al-ulama masmuuma وعادة الله في هدك أستار متنقصيه معلوم وحنا هيلبك علماء واسنيسية إلهنا وحى الله قبرت قفك علماء هيلب كوضع عنا إن إلهي عودة ووتشر يا الله الله قبر ولا إنسان تشركي السلمان إنه قلبك سلمته وحين كوجب جبين لهي بارك الله فيك جمعاله قصة إمام النووي رحمة الله تعالى عليه وحجرني الشيخ وقتي دي كدم بيه نورا ريز زبيد أهو يمني أها هو إمام النووي وحوجه جيري إمام النووي إمام كانوا نقعنا إلهي نعلم بيسو بركية هذا حديث هذا هاي مركا فقهي هذا هاي مركا علم كلابة إلهي بركة وقليل إمام كوا حجري إمام ريز زبيد هو وحي أبو عبد الله زبيد أيال الأورنجري والشيخ أبو حقاك عرب إيرانا تراجمت العلماء ما يقول ترجمة سنة وحي هذا ننكاس مركو دنتي إن أيا أسكي سيدو لود يرجرو بأيو أيا بصد ملك قشيان قولي مشو مسؤول منتكو يلا أنا لقرانين meelay ka soo gashay ayaa bay guriga yaraa u dhacdo meydka sheekhu yaalay dadna carabka sheekhi goosatay markuu dhintay waa ninka marka dadku waxay yiraahdeen oo loo carab saaray markii la isxansaday waxa Imaam Nawawi wax ka sheegi jiray sheekhani Imaam Nawawi marka la daba dhigay dadna cuqubadaas ayaa marka ku dhacday adduunkii bay isagoo aakhiraba u digin oo ifka jooga marka runtii waxa mudan dhalinyarada in carabkooda aad loo naseexayo loola taliyo culimada in carabkooda marka waxa weey iska ilaaliyaan culimada marka weeye arintaas arrin qofku ifkiisana uma hadinaya maaha aakhirana ma hadin ma raadkeedana wax badan inagu maanta adduunyada joogna ayaba raadkeeda la arko dhalinyaro fara badan waxa weey inay cibaadaadka Ilaahay badayacaan oo cibaadaadka bay ka tagaan marka walaalaha guud ahaan kulliga culimada ay ardayda u dhiga waxaanu leenahay marka ardayda marka waxa weeye lagu tarbiyadeeyo inuu qofku carabkiisa ilaashado inuu aakhiradiisa marka uu dhowrto inuu waxay culimada ixtiraamo culimada xuquuqdooda marka inuu iska ilaaliyo fadliga culimadu ay leeyihiin iyo fadaayishooda looga sheekeeyo hadii la arko wasaqo marka waxyaalo marka jirjir sameynayana in la wacdiyo oo looga digo waayo waxa dhacaysa haduu wadaadkan maanta jirjiro wadaadkan kalena bari ayuu jirjiraya marka qisaasan la barakallahu fiik